doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas'uuliyadda ku saarantay madaxweynaha asxaabta kama saarnay laba sanadood waxaan doonaynay madaxweynahaas inuu doorasho qabto Umar Marsiya ka dhigtay xusbi qura oo yiri kuma kalsoonin guddidaas hadduu madaxweynuhu daacadka doorashada uu qaban lahaa madaxweynaha waxaan u sameynay concession badan baan u sameynay tanaasul sidoo doonayay baa la nagu dhexdhexaadiyay ugu dambeyntii baarlamaanka loo gudbiyaa la yiri baarlamaanku ka hortagay baarlamaanku ka diiday in aan sharci u lahayn ilaa waxa weeye la tariiq baarlamaanka xaga sharciga wili suurtagal ma haddana waan u dul qaadanay TC baan u ogolaanay in toddoba la magacaabo labana hadhowta lagu dar labada xisbi leeyihiin suu doorashada haddana isku hortaago ayuu haddana xeerkii jabiyo xubin aan sharcigu sheegayin in aanu soo gelin xilka qaban ayuu magacaabay marka madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshe samaysay naftiisa oo baarlamaankuna ha kordho guurtuna ha kordho taaduna ha kordho doorashadiisu waxaan u sheegnay madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo muuse ma noqonayo ma joogiyo runtaan idin sheegaya hadduu doorasho diido dumaraadii way dhimatay talaabooyin kale waan qaadnaa oo kursigiisa aanu sii hayn anagu waxaanu sameynay oo sudna guddi baan isu qabanay guddidaas oo qabanay oo ogolaanay oo mandate siiyay anaguna aan siinay kalsoonidii ayuu saddex arrimood ku dhaqaaqay waxaan inta tusiyaa inuu daacad ahayn koow wuxuu sameeyay guddidii la isku haystay ayuu dhaariyay laba wuxuu sameeyay kordhis baarlamaan oo laba sanadood joogtiin in la isku haysto saddex wuxuu sameeyay guddidii isdoorta oo gudoomiye ka dhiga xubintii la isku haystay afar qof ay doorteen laba qofna ay ka hareen taas waxa ku tusisaa inuu muuse muran u taagan yahay laakiin dalkani muran oo maahay waa laga tashanaya dhibaato aan maanta muuse hena dalkan male dagaal Somaliland iyo Soomaaliya meel looga baqayaa shacabka Soomaaliland waan sheegaya khatarta Somaliland maanta ku eegana waxa weeye muuse oo hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran iyo gaar u joogo wuxuu yiri waxaan casuumiyaa madaxweyne wuxuu yiri waxaan casuumiyaa labada xusbi waxaan leenahay anagu labadaas sanadood 10 jeer baan madaxweynaha la fadhiistay وسام كسر وتودن بيسهاد لحيلا تكيشون وحفلتي كيري وأنا كل منا وحنا نسوي كصباح حيا حبا كم صباح كل كيس وحنا صباح حيا متشرد قرب وحنا جايني حير بيوكتان سمعني قد يدار هذا أو حرقة ورئيس مالنا هذا أو سكوت شرتا ومضي نحن هيك كوبيين كواسان السوقنا موسان روح الدمان ولا فريساننا ونهر تجينا متشردو مدحني بدي سنة وأنا قد عشان هذول ما ندور شغل واي والسلام عليكم. كذي إحنا حادين سيدكيو مدحوينها هالكبير أنت اللي كده بيسي. وتنقد السوقنا وي هيسووا إلهم لكم ما ينكلم هبنا لكن أنا نقول قد ذا عنه شرع هدو كتجي ده واحد تجينا حبكم يعني سومالنا دول السوق شيء ودي بقى هيش السنين تدي قد بان سوقنا إن شاء الله تعالى خير مدحوينه ما تخشين عاصمة صارنت سدح حسبيه كل شيء وين دورشة وحنا يدوكوا باقيين لابد إنه قدومي ولا تشدوا يا كس ما تشوفين كم مدحوين يدوكوا باقي مات نعس ما يصير صارنت أنا ما صارنت ولا بس أنا وحبك قبل واي ودك وحبك قبل كل واي أنا كل ما إنه قد أنا سوقنا